السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله Samsung Academy course-keeni Adobe Illustrator maanta casharkeena waxaan ku qaadi doonaa hadduu alla idmo sidee background-iga looga reebaa ama looga saaraa marka aad rabto program ama project aad samaysay marka aad rabto inaad soo saarto loogadaada waxaa laga yaabaa mararka qaar loogooyinka inay yihiin ama ay la socdaan background white ah marka aad soo saarto background-iga loogadaada halkan aad soo dhigto kale uusan background-igaada white ahayn waxaa laga yaabaa halkan loogada inay ku fariisato background oo white ah marka casharkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa sida background-gaas looga saaraa ugu horeyn loogada aan soo geliyo saad u aragtaan background-ga aan sheegayo file open kadib loogadii noo soo qaad ee halkan noo soo geli okay loogada noo soo qaad marka noo karsaar ID card-ka okay sida u jeedaan loogadii waxaa la socdo waxaa loo yaqaano background oo white ah marka sida hadda ugu tagto ID card-kaadii ama project-ga aad samaysay ma qurxoono sababtoo ah loogadii waxaa la socda background white ah background-ga hadda halkan ku saaran ma ahan mid white ah marka casharka maanta waxaan ku qaadanaynaa marka background-ga sida looga saaraa adigoo isticmaalaya adoo ku jira Adobe Illustrator waxaana ku isticmaali doontaa Photoshop ayaad background ugu soo saaraysaa halkan Photoshop uu shidan yahay ama uu kacsan yahay Photoshop-ka marka ugu horeyn waxaad ka bilaabaysaa marka loogada saan usoo geliso korkeeda ayaad click ku dhigaysaa halkan kore waxaa kuu soo qormayso and embed halkaas ku dhufo kadib waxaa noo save garaysaa marka programkeena logo wuxuu u save garaynayaa marka Photoshop PSD file kadib Photoshop ka la tagaysaa kadib waxaan dhahdaa save marka dhahdo waxaad tagtaa Photoshop-ka gudihiisa ku jirto waxaad tagtaa file kadib open waxaa soo gelinaynaa filekii hadda aan ku save garaynay PSD-ga oo aan ku qornay halkuu noo yaalay waa kane logo ayaa noogu qorneyd kadib waxaa dhahdaa open kadib okay dheh logadii halkan ayaa soo gashanay oo hadda aan soo save garaynay loogada hadda gudaha aan soo geliyay ma ahan loogadii caadiga ii ahayd ee background white la socday waa loogadii ugu dambeysay marka aan joognay Illustrator aan halkan kore embedded kusoo dhuftay aan soo save garayay ha isku qaldin okay kadib waxaan bilaabaynaa Photoshop-ka sida hore ugu taqaaneen Photoshop-ka sida background loogu saaro waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano quick selection tool ama waxaa isticmaalaysaa magic wand tool marka quick selection tool waa dooran kartaa waa ku jiri kartaa magic wand tool marka aniga waxaa ii fudud oo hadda rabo inaan ku jiro magic wand tool click noo dheh click markaa dhahdo halkaan noo door background-ga kadib control x dheh qaybtii background-ga hoose waa laga jaray waxaa noo dhiman gudahan inaan white-kan ka reebno halkaan rabto click ku dheh marka white-ka control x qaybtaas waa la jaray qaybtaan ku dhufo control x iyadana waa la jaray halkaan ku dhufo control x iyadana waa la jaray marka soo dhaweys zoom soo dheh haddaa fiiriso marka loogadeena marka background-ida waa laga reebay weli qaybtan gudahan ayaa white ku jira click ku dheh control x halkaana sidoo kale control x okay waxaa noo dhiman marka qaybtan waa jaran tahay qaybtan waa jaran tahay white-kan waxa weeye waa buugii ma fahanti okay marka waan sameynay marka background-iga waa ka reebnay waxaan rabnaa marka background-iga halkan shaqada aan ka qabanay inay saameyso white-ka inuu baxo saa u samayso marka waxaa dhahdaa control s oo ah ii save garay shaqadaan qabtay control s markaa dhahdo waxaad aadaa Illustrator marka aad su-aashan ayuu ku weydiinayaa wuxuu leeyahay shaqadii xagga aad ku qabatay update garayn ma lagu sameynaa oo halkaana ma laga jaraa waxaad dhahaysaa yes markaa dhahdo isla marka automatically background white-kan insha Allah wuu bixi doonaa click ku dheh okay saa u jeedaan noo soo dhaweey white-kii waa naga baxay marka background white-kii waan ka soo saarnay kadib loogada meesha rabto hagaajiso oo qurxiso meesha rabto dhiga marka okay sida u jeedaan loogadeeni hadda waa masha Allah sababtoo background-iguna waa iska soo reebnay marka casharkeena marka wuxuu ku saabsanaa sidee background-iga white-ka ah ama background aad la socoto loogadaada ama shay kasta aad rabto image haddaad rabto inaad soo geliso sawir sidoo kale background uu la socdo sidee loogu reebaa adigoo isticmaalayo Photoshop
iyo illustratorka. illustrator gudihiisa adigoo jooga ayaad photoshop shaqo kusoo qabsanaysaa, isla shaqadii photoshopka kusoo qabatay ayaa emergency ama automatically waxay ka dhacaysaa illustratorka gudihiisa. marka casharkeena oo aad u muhiimsanaa oo aadna u koobnaa halkaas ayaan maanta ku bisaynaa. aad u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.